kusoo dhawaada cashir gaaban oo ka mid ah cashiradeenii aan halkan ka qaadan jirnay insha allah kaasoo aan uga hadli doono sheeko gaaban oo laba qof u dhaxaysa marka insha allah dhageysi habboon halkan waxaa inoogu qoran sheeko gaaban waa short conversation between two persons laba qof u dhaxaysa wuxuu dhahay good morning sister subax wanaagsan walaal good morning brother too subax la mid ah walaal sister wuxuu dhahay do you have any tea wax shaah ma haysaa yes I have a tea bay tiri shaah waan hayaa please give me a very hot cup of tea fadlan waxaa i siisaa koob shaah oo aad u kulul very hot cup of tea a very hot cup of tea a very hot please give me a very hot cup of tea do you want tea breakfast waxay dhahay marka wuxuu dhahay fadlan isii koob shaah aad u kulul su'aal baa la weydiiyay do you want ma rabtaa breakfast qureec yes wuxuu dhahay I need waa u baahnay it ayada what kind of breakfast do you have qureec noocee ayaad haysaa waxay dhahday I have bread with a soap rooti ayaa la dhahaa bread waa rooti bread with a soap maraq iyo rooti and fried meat waxay tidhi rooti maraq leh iyo hilib la shiilay ayaan hayaa ereygan ayaa fried ayaa wuxuu yahay shiilitaan what is the price of the fried meat bread and the tea qiimaha hilibka la shiilay rootiga iyo shaaha maxay isku yihiin u dhahay it is very cheap bay tidhi aad ayuu raqiis u yahay less than $4 wax ka yar $4 weeyay dhahay it is a good price oo dhahay waa qiimo wanaagsan it is an affordable price waa qiimo la awoodi karo dhahay macnaha qof walba awoodi karo add for me igu soo dar u dhahay add for me igu soo dar a normal water biyo caadi ahna igu soo dar it is a very sweet waa cunto aad u macaan it is a very sweet breakfast waa qureec aad u macaan are you sure bay tidhi this breakfast is sweet qureecdan inay macaan tahay ma hubtaa yes it is a very sweet food waa cunto aad u macaan thank you my friend aad ayaad u mahadsan tahay hal mar aan ku celinayna oo soo gaabinayna good morning sister good morning brother too subax lami good morning sister subax wanaagsan walaal gabadh buu la hadlayaa dabcan good morning brother too sidoo kale subax wanaagsan walaalow subax la mida dhawaliyo tooda dambe waxay u taagan tahay la mida sister do you have any tea wax shaah ma haysaa yes I have a tea shaah waan hayaa please give me oo dhahay a very hot cup of tea koob shaah aad u kululisi do you want ma rabtaa ayay dhahday breakfast qureec yes ha waa rabaa I need waan u baahnay it ayada what kind of breakfast what kind of breakfast do you have qureec noocee ayaad haysaa buu dhahay breakfast qureec noocee ayaad haysaa waxay tidhi I have waxaan hayaa bread with a soap rooti maraq leh and fried meat iyo hilib shiilan ayaan hayaa what is the price of the fried meat and the bread fried meat bread and the tea shaah hilibka shiilan rootiga iyo shaahu meeqa isku noqonayaan it is very cheap bay tidhi cheap waa raqiisnimo waa erey aad raqiis waa less than $4 wax ka yar $4 it is a good price waa qiimo jaban ayuu dhahay qiimo wanaagsan good price qiimo wanaagsan it is an affordable price waa qiimo la awoodi karo add for me igu soo dar normal water biyo caadi ah it is a very sweet breakfast waa qureec aad u macaan ayuu dhahay way weydiisay waxay tidhi sure ma hubtaa sure hubid waayo xaqiijin this breakfast is sweet inay macaan tahay ma hubtaa yes ha it is a very sweet food waa cunto aad u macaan thank you aad ayaad u mahadsan tahay tidhi intaasaan ku daynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi